Assalaamu calaykum. Videogan waxaad ku baran doontaa structure-ka HTML file-ka, sidoo kale qaar ka mid ah element tags-ka HTML-ka. Waxaan abuuri doonaa page-keena ugu horeeya HTML. Videogan dhammaadkiisa waxaad samayn doonaa basic web page HTML ah. Ugu horeyn, aan ka bilaabno inaan furno Visual Studio Code si aan u abuurno file cusub. Aynu ku dhex qorno file-kaasi first page. Waxaad u bixin kartaa magaca aad doonto, balse waxaa qasab ah inuu ku dhammaado .html. Haddii aad file-kaas ku furto browser-ka, waxaad arkaysaa inuu soo saarayo wixii aad ku qortay file-ka HTML-ka. Sidee bay u shaqeeyaan markaasi? File-ka aan qornay kama koobnayn HTML tags. Gadaal waxaa ka dhacaya in browser-ku ku daro HTML tags. Mar walba uu browser-ku arko file uu u dambeeyo .html, wuxuu aqoonsanayaa inuu yahay HTML file, wuxuuna ku darayaa element tags-ka ka dhiman. Si aan u aragno siday u egyihiin tags-ka, waxaan u baahannahay inaan furno developer tools-ka browser-ka. Si aan u furno, waxaad taabataa Ctrl+Shift+I amaba Command+Shift+I haddii aad Mac isticmaalayso. Kadib waxaad arkaysaa shaashad sidaan ah oo waxyaalo badan ku jiraan. Shaashadan waa mid in badan la adeegsado, balse kaliya aan ka fiirino HTML tags-ka. Waxaad halkan ku arkaysaa dhammaan HTML tags-ka uu ka kooban yahay page-ka iyo qoraalka aynu ku qornay file-ka HTML-ka. Sidaad u jeedo, page-ku wuxuu ka kooban yahay 3 elements oo ah head, body iyo weliba HTML. Waxaa jira element afraad oo uu leeyahay HTML file weliba. Waxaa loo yaqaanaa doctype. Doctype waa elementiga ugu horeeya HTML page-ka, waana inuu noqdaa waxa ugu horeeya ee HTML file-ka laga bilaabay. Doctype-ku wuxuu browser-ku u sheegaa version-ka HTML aad isticmaalayso. Elementiga labaad waa HTML. Tani waxay u sheegtaa browser-ka dhammaan code-ka ku jira file-kaaga inuu yahay HTML file, waxayna ka kooban tahay waxa ku jiro HTML files-ka dhammaantoodba marka laga reebo doctype. Elementiga saddexaad waa head. Caadi ahaanba waa optional oo qasab ma aha. Head elementigu kama soo muuqanayo browser-ka, waxaana loo adeegsadaa inuu sheego title-ka iyo description-ka page-ka. Elementiga ugu dambeeya waa body. Wuxuuna ka kooban yahay dhammaan waxa aan rabno inaan ka soo saarno browser-ka. Wuxuuna ka kooban yahay qoraal, sawir, video iyo qaar kaloo badan. Isku day inaad beddesho elementigan adigoo qoraalka ku beddelayo qoraal kale, kadibna save garey. Waxaad arkaysaa browser-kaada uun isbeddeli doonin ilaa aad refresh ka tiraahdo. Waxaan soo degsan doonaa extension loo yaqaano live server. Extension-kan wuxuu si automatic kugu refresh gareyn doonaa browser-ka. Si aad u soo dejisato, tag qaybta extensions-ka ee Visual Studio Code-ka. waxaadna raadisaa live server. Kadib ku dhufo install. Kadib ku dhufo reload. Waxaa restart loo diri doonaa VS Code si loogu soo diro extension-kan cusub. Intaas kadib waxaad tagtaa HTML file-kaaga. Kadib waxaad hoos ku arkaysaa button ay ku qoran tahay Go Live. Ku dhufo markaasi. Waxaad ogaataa URL-ka inuu u ekaanayo sidaan. Sababtuna waa live server-ku wuxuu isticmaalaa computer-kaaga si server si uu ugu diro files-ka web browser-ka. Aan fiirino URL-kan. Nambarada ugu horeeya waa 127.0.0.1 waa IP address local host-gaaga, wuxuuna la mid yahay IP address-ka computer-kaaga. Nambarada ku xiga waa port numbers-ka. Waxay u shaqeeyaan si la mid ah sida adigoo jooga department hotel. IP address-ku wuxuu u taagan yahay dhammaan department-gaas, halka port number-ku uu u taagan yahay address-ka qol ka mid ah department-gaas. Haddii aadan sheegin port number, browser-ku wuxuu automatic ugu dari doonaa 80 oo ah port default ah ee ay adeegsato HTTP si ay communication u sameyso.